kani waa qoriga RPG ee adeegsato Xamaas waa gantaalka ay Soomaalidu ugu yeedho sabanka oo adeegsigiisu caan ka yahay dhulka Soomaalida gantaalkan waxa loo isticmaalaa lidka taangiyada dhacdada loo bixiyay Black Hawk Down ee ciidamada Mareykanka ka qabsatay Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho 1993 waa mid aad loo xasuusan yahay qoriga RPG ama sabanku waxa uu dagaalyahanada Soomaalida ka caawiyay in ay soo ridaan saddex kamid ah dayuuradaha qumaatiga u kaca ee Mareykanka oo joog hoose caasimada ku dulduulayay Black Hawk Down waa mid kamid ah magacyada ay wadatay diyaaradaha la soo riday warbixinteenan waxa aan ku falanqeyn doonaa qoriga sabanka ee dhaqdhaqaaqa Xamaas ay kala hortagayaan taangiyada Israa'iil kuwaasi oo khasaare xoogan soo gaarsiiyay sida ay muujinayaan cadeymo muuqaal ah oo ururku uu soo bandhigay maalmihii inna weydaartay RPG ama 7 waa qori laga soo gaabiyay Rocket Propelled Grenade waana gantaal garabka laga rido oo lagaga hortago taangiyada iyo gaadiidka kale ee ciidamada cadawga waa qori afka loo geliyo gumac weyn oo bamba ka samaysan kaasi oo leh baalal uu ku duulo gumaca qarxaya waxa uu wataa qayb dambe oo qarxiso ah oo gadaashiisa ka baxda xabadda sabanka waxa loogu talagalay in ay duleeliso gaadiidka cadawga isla markaana ay ku qarxdo iyada oo gaarsiinaysa waxyeello weyn waxa kale oo loo adeegsadaa baabuurta tiknikada ee qoryuhu ay saaran yihiin ama in lagu qarxiyo goobaha uu cadawgu ku urursan yahay muxuu yahay qoriga RPG ee la yiraahdo Al-Yaasiin qoriga sabanka ee Al-Yaasiin lagu magacaabo waa mid kamid ah gantaalaha garabka laga rido oo ay kooxdu adeegsato waxa markiisii ugu horeysay ay isticmaashay sanadkii 2004 waxa loogu magac daray wadaadkii ruuxiga ahaa ee kooxda tan aasaasay Sheekh Axmed Yaasiin oo ciidamada Israa'iil isla sanadkaasi ay dileen waa qori ujeedkiisu uu markii hore ahaa in loo isticmaalo ama loo adeegsado gaadiidka fudud ee dagaalka ama waxa loo yaqaan soft skin vehicles laakiin sidaasi oo ay tahay waxa uu awood u leeyahay in uu burburiyo taangiyada Israa'iil ee Markava la yiraahdo guutada Ciisadiin al-Qassam waxa ay dhawaan soo bandhigtay jaad kale oo kamid ah qoryaha lidka taangiyada oo dhererkoodu uu gaarayo 105 mm qoriga kan waxay kooxdu isticmaashay dagaalkii duufaanta Aqsa ee horaantii bishii la soo dhaafay ay ku qaaday Israa'iil kaasi oo ay ku burburisay qaar kamid ah taangiyada Israa'iil ee dagaalka oo Markava la yiraahdo isla markaana ah kuwa ugu casrisan ee ciidanka Yuhuuddu ay adeegsadaan halkee lagu sameeyaa hubkan sida ay sheegayaan dadka ka faalooda arrimaha ciidanka qorigan sabanka ay ku dagaalanto kooxda Xamaas waa mid aan meel kale ka iman laakiin lagu farsameeyo gudaha marinka Gaza inkastoo la rumaysan yahay in sameyntiisa ay gacan ka geystaan Israa'iil iyo ururka Hezbollah oo iyagu hodan ku ah hubka noocan ah gaar ahaan marka ay timaado keenida walxaha caydin ee laga keenayo barnaamijka magaalada Gaza awoodda qorigan Al-Yaasiin oo marar kala duwan la horumariyay waxa uu la tayayahay qoriga RPG 2 ee Sovietku ay isticmaali jireen hubkan ay Xamaas soo bandhigtay waxa gumiciisu uu jaraya 295 mitir ilgibirsigiiba waxaana halkii daqiiqo la ridi karaa 3 ilaa 4 goor guutada Salaaxudiin oo ka warbixinaysa awoodda qoriga RPG ee garabka laga rido waxa ay sheegeen in gumcu uu daloolin karo biraha adag ee taangiyada Israa'iil kuwaasi oo ay ku jiraan kuwa darbigoodu uu ka samaysan yahay 210 mm oo xadiid ah isla xogtaasi waxa ka marakacay sirdoonka Israa'iil hubka noocan ah ayaa waxa haysta sidoo kale ururka Hezbollah oo iyaguna ku dagaal galay colaadii 2006 dhex martay Israa'iil iyo Hezbollah konton kamid ah taangiyada Israa'iil ayaa ay bartilmaameedsadeen 22 kamid ah sabanka ayaa haleelay kuwaasi oo 6 kamid ah ay burbureen waxa kale oo xusid mudan in Hezbollah sidoo kale ay adeegsatay oo ay hore u soo bandhigtay qoriga Cornet ee lidka taangiyada oo kamid ah kuwa caalamka ugu horumarsan dagaalkaasi wixii ka dambeeyay Israa'iil waxay horumarisay awoodeeda difaaca taangiyada waxaana ay soo saartay nooc taangiyada Markava kamid ah oo la yiraahdo Markava IVM taangiyada jaadkan ah waxa ay leeyihiin nidaamka raadaarka oo ka hortagaya gantaalka soo socda waxaana suurtagal ah in ciidanka taangiga saaran uu ka caawin karo inuu u sheego jihada uu yoolku ka haysto sidaas oo ay tahay haddana waxa muuqata in gantaalada iyo qalabka kale ee dagaal ee lagu farsameeyo marinka Gaza ay yihiin mid walaac xoogan ku abuuraya ciidamada Israa'iil ee dagaalka ka wada marinka Gaza muddooyinkii la soo dhaafay